Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha qaaliga waan ii salaamay meel walba dunida ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan waa video kale oo motivation ah oo nii dhiirigelinayo iyo qaab cusub oo soo sameeyay qolka fadhiga insha Allah ila soo wadaagay marka waa kana horta marka ugu horeysa muhiimada waxa waaye geedkan aan iga sheekeynayo geedka weligay ma haysan guriga yacni markii ugu horeysa waaye uu isoo maro geed noocaan oo maasha Allah aad u qurux badan walahi run ahaantii aad iyo aad uga helay guriga quruxdiisa wuxuu ka siisanaa qaab aad iyo aad u weyn yaa maasha Allah marka waa soo iibsan doonaa ubaxyo badan oo haddii ahaa lahayn kuwa qalalan ama kuwa qoyanba sababta aanay aad uga helay gurigani waxaa ku arkay different oo inoo siinayo guriga qurux marka maasha Allah marka aad uga helay run ahaantii soo tijaabiya haddii aad haysateen waaba ogtihiinbo yacni kaalinta uu ka leeyahay guriga qurxintiisa maasha Allah marka intaas ugu baxno walaalahayga maanta waxaan soo isticmaalay kalarkan quruxda badan oo maxaa madow iyo cadaan iyo waxaan soo isticmaalay kalar kale oo aad iyo aad u ifayo qurux badan oo orange kalarkan waxaan kasoo iibiyay madowga iyo cadaanka isku jiro waxaan kasoo iibiyay dukaanka waxaan ka dalbaday dukaanka maxaan lahayn shine meesha ka heli kartaan sidoo kale oranjiga maasha Allah waxa ka heli kartaa from shine waaye barkintan waxoogaa way weyn tahay waxa lagu dhiftay konton waaye marka waxoogaa way weyn tahay kuwa kale way ka weyn tahay weyn ka balaarsan tahay maasha Allah sidaana nagu soo baxay qolkeeni maanta waxaan kala soo isticmaalay daah madow iyo cadaan marka waa in isticmaashaa kalar kale oo ifaayo maadaama aad ubax dhan wada mugdi ahaadaan waxaa loo baahan yahay hal kalar oo guriga dhan wada ifinayo marka aniga kalarka oranjiga isticmaalay kalarka oranjiga waxa waaye maasha Allah aad u soo jiidanaa qadii yacni ala fiiriyo fadhiga waxaa aad iyo aad marka indhaha toos u qabanaya waxa waaye kalarka oo oranjiga sidoo kale waxaan soo isticmaalay maasha Allah ubaxyada aad u qalalan oo kalarka oranjiga iyo madow marka dhalada ku jirto ubaxa waxa waaye madow marka saas aan iskugu maajin gareeyay maasha Allah aad uga helay run ahaantii adinkani comment igu soo qora fikradiina sida idin la tahay sida yacni ka hesheen wax kasta waa idiin soo jawaabi doonaa insha Allah meesha ka helay inkastoo aas ka soo isticmaalay wax yar simple and easy aan soo gadinba wax badan wixii guriga yaal soo isticmaalay maasha Allah marka ubaxan aad idin arkaysan wuu qalalan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan idinku recommend gareeyo geedan oo waxaan kasoo iibisay from ritual waaye waxa waaye maasha Allah aad u caraf badan doft wuxuu ku siinaa caraf badan barfuun camal waa caraftiis marka agtiisa maraysid aad u dareemaysaa waxa waaye caraf wuxuu leeyahay udgoon oo yacni aan saaid adeeg u ahaynin maasha Allah ubaxan arkaysaa wuu qalalan yahay waxa waaye ubax oo caag waaye wax camal loogu talagalay maanta marka maasha Allah saas oo guriga noogu soo baxay qurux ku dhawaa ka helay run ahaantii yani kalarka maadaama uu saaid u ifaayo guriga dhan ifinaya ku dhahay maasha Allah tabarakallah waa kaya asxaabteeda hadda ka fikiraysaan maxay ii taalo marwaxo guriga qolka fadhiga maadaama kuleel hada bilowda habeen waa hada videogan aduwayo waxay ahayd habeenkii jimciis soo galayay marka kuleel saaid jiro waxaa isticmaalay kuleel qabow sidaas saaid gurigaas oo qabow igu noqdo ma la joogi kara ayaanta hada marka xilliyada markay bilowday qabow guriga dhan kuleel oo noqonaa marka saas aweed ayaan u isticmaalayaa maasha Allah meeshaan waxa waaye geedkaas ubaxyadaas qoryahaas ku dhex jiraan marna gadaal aan gelinaysaa marna waa ka bixinaysaa yacni si oo yacni oo carafta ay guriga u hayso waxaan isticmaalayaa dhaladaas laba xabo aad u jeclahay waliba dhalada madowda yacni caraf gooniya leedahay waxaa jirta ayu noocyo badan oo caraf jirto oo kala duwan marka maasha Allah ritual la dhahaa wuxuu ku yaalaa wada magaalooyinka waaweyn marka insha Allah hadaa joogtid Göteborg ka heli kartaa Stockholm Västerås magaalooyinka ugu badan way haystaan maasha Allah marka waxaa isku dayaa hada nalka iftiinka saxda because hada madowgan waxaa malaysaa wax yar boorboor inuu ku jiro laakiin madowgiisa saaid uu tiq u yahay oo wuxuu waaye madow iyo
cadaankiisa waaye marka iftiinka saaid noqdo saas awgeed gacanta ku xoogaa ku taabtay marka labadaas barkin hadda gacanta ku fiiqayo waxa waaye labada barkin oo madow ah isticmaalayo barkintan kale oo sii jeedan madow waaye laakiin maanta waxa ma isticmaaleen madowgeeda ma isticmaaleen gadaasheed waxa waaye cadaan waaye marka saas awgeed ayaan u soo isticmaalay dhinaciisa cadaanka waana aragtaan sida quruxda badan oo soo baxay walaalay qaaliga yaa maasha Allah si qurux badan ayuu igu soo baxay maadaama kalarkan xataa oranjiga uu saaid u ifaayo saas awgeed ayuu yacni u soo saarayaa kalarka madowga oo marada madowda iyo cadaanka isku jirtana waa aragtaan saaid ay maradeeda madow tahay walaalay qaaliga muhiimada waxa waaye in guriga ku soo kordhiso gaartid wax yar oo decoration mu baahnid ina wax badan soo adeegtid ama wax badan soo gadidid yaa just wax yar oo simple qurux badan u baahan tahay xataa hadii isticmaali jirtay wax badan mar hore waa soo isticmaali kartaa marka daahan waxaan soo isticmaali jiray mar hore muddo 6 bilood oo malena laga joogaa hadda ayaan isticmaalay daahas madowga iyo cadaanka marka hadda ayaan dib u soo ceshtay maadaama oo la galay xilliga iftiinka marka daaha shabaq waaye iftiinkan gudaha saaid u soo galaa markaas awgeed ayaan soo isticmaalay maasha Allah marka maasha Allah walaalay qaaliya saan ayuu yahay habeenkii marka nalka weynka la damiyo banaanka iftiinka ugu dhamaaday hadda waxa waaye mugdiga soo galay soo markaasaan qurux badan ayay igu soo baxday habeenkii markii la gaaro just waxa ii shida nalka oo TV gadaal ugu dhagan iyo nalka yariiska yaalo fadhiga agtiisa marka intaas just ayay ii tahay waana arkaysaan lightka iftiinka ka soo baxayo TV-ga iyo TV-ga nalkiisa marka maasha Allah walaalay qaaliga waa kana sidan quruxda badan ayuu ku soo baxaa habeenkii babyga hadda waan soo seexiyay just waxa waaye me time waaye xoogaa yeelis waqtigaas ka qaadanaya yaa marka insha Allah I hope inaa ka heshaan walaal geeshadna hana ilowina like dhahdid comment qurux badan is reebtid yaa ayaanta waan iswaynay walaalahayga commentigiina waa loo xiisayaa saaid uga xiisay runtii commentigiina qurux badnaa ay soo qori jirteen meeshiina ka sii wada yaa dhiirigelinteeni meeshani ayay nagu sii socon doontaa insha Allah marka insha Allah walaalay qaaliga waxaan rajeynayaa in videogan wax badan ka faa'iiday waan isku soo laaman doonaa videoyaal badan oo is dhiirigelin waan idin soo wadaa qaaliga videoga intuusan igu dheeraanin waxaan isku dayaynaa si niisoo gaabiyo time ugu caajisin so insha Allah videoyaal kale ayaan kasoo sameyn doonaa dhiirigelinta iyo waxyaabo badan oo sheekooyin ah idin soo wado insha Allah intaasni waxaa idinkaga tagay inta ku gaari doono sida ay nabadgelyo waa inoo mar kale iyo kulantin dambe oo xiiso leh insha Allah marka intaan hada video soo gaartine videoga like-tiisa iyo share-tiisa iyo subscribe-tiisa intaas adaa kaga tagay. Assalaamu calaykum. Bye bye.